ألا وهي الصلاة. كما هدلينا الصلاة هي واجب كده، الصلاة هي أركان كده، الصلاة هي وحي كوا صحة، الصلاة هي مهمة كده. لكن waxaan tilmaamaynaa sida ay muhiim ugu tahay bulsho muslima dhisideed oo nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi cahdi aan dawlad islaami jirin oo masaajida cusub oo la dhistay aanay jirin, allahuma ilaa masaajidka dee xaramka ee isagaa 360 sano miyaaleen mooyaane aan masaajidka la joogin, waan meel la isugu yimaadoo kale jirin, ayaa ilaahay subxaanahu watacaala salaada ku waajibiyey. ta macnaheedu waxa weeyaan salaadu inay tahay waxa abuura bulshada muslimka ah. waxaa in badan dadka maanta ay ka fakerayaan xagga gaalaa jirto, xagga gaalaa jirto, halkan waxbaa la isku garaacaya, maadaa nacmal bay dadku isweydiinayaan. waxayn leenahay arkaantii islaamka ama dadka muslimiinta dhisaysay baa u baahan inaynu dib u milicsano. waxaa u baahan inaynu dib u milicsano salaadaas. waa asaas bay u tahay baynu leenahay takwiin alumma alislaamiya. walidalik iyadoo aan arkaanta kale la waajibin baa ilaahay salaad waajibiyey. waxaa intaasi dheer nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markay naftu kasii baxaysa ugu dambaysayna waa wuxuu dardaarmay. yani qofku marka uu dhimanayo ee uu og yahay inuu dunida tan ka tegayo, ee uu isleeyahay dadkii uu ka naxayay u dardaaran, waxa uu dardaarmaa waxa ugu weyn ee uu isleeyahay dadka uga sii tag. nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wasiyaadkiisii ugu dambeeyey, bale naftu markay kasii bixi doonto wasiyadu lahaa asalaa asalaa wamaa malakat aymaanukum, sida xadiiska abi daawuud iyo keyrkiiba sheegayaan, sheekh albani saxiixa ku tilmaamayo. asalaa asalaa waa wuxuu nebigu ku dardaarmay ugu sii dambeeyey. salaada waa shaygaasi manziladeeda aynu wada naqaano, nusuus badan iyo axaadiis aada u tiro badani ku soo aroortay. ilaa xad culimadu ay tilmaamaan arkaanta kale dhulkaa lagu waajibiye meel bini aadam gaadho halkii ugu sarraysay markuu nebi moxamed marayey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh in la soo faray laylat lmicraaj. haddaynu dib ugu noqonno qur'aanka makiga ah, waxaynu dareemaynaa inay salaadu ka mid ahayd waxyaabihii tawxiidka la socday. waxaynu dareemaynaa inay ka mid ahayd waxyaabihii nebiyadii hore ilaahay subxaana wa tacaala uu soo faray. sideedaba arkaantan shanta ahi haddaad nusuusta qur-aankaa dib ugu noqoto waxay ka mid yihiin diimihii samada ka soo degay waxyaabaha ay wadaagaan intooda badani. hadday xajtay, hadday soontay, hadday salaatay, hadday zaka tahay, kayfiyaadkeedun baa kala gedisnaa. manzilada ay ka taagantahay waxaa kaaga filan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka warramayaa abulambiyaai ibraahim calayhi salaam. nebi ibraahim oo ilaahay baryaya, oo maxay ka baryaya? rabbi ijcalnii muqiima asalaa wa min duriyati rabbana wataqabal ducaa. nebi ilaahay baryaya subxaanahu wa tacaala oo gacmaa kor u taagaya, oo waxa uu ilaahay weydiisanaya ay tahay inuu alle ka yeelo mid salaada ooga. ahmiyadeeda waxay tilmaamaysaa inay hidaaya gaara u baahantahay salaada oogideedu, hidaayo gaara inay u baahan tahay. sidaa daraaddeed baa abulambiyaa intuu ilaahay baryay subxaanahu wa tacaala ayuu ilaahay wuxuu weydiisanayaa inuu alle ka yeelo mid salaada ooga. haddaynu qur-aanka akrino waxaynu arkaynaa ambiyadii hore, nebi ciise oo leh qaala inii cabdullah aataaniya alkitaaba wajacalanii nabiya wajacalanii mubaarakan aynama kunt waawsaanii biالصalaati wالzakaati maa dumtu xaya. nabiyullaahi ciisa oo le ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ii dardaarmay amase i amray i faray salaad iyo zako inta aan noolay. waxaynu qur-aanka ka dareemaynaa iyadoo nebi muuse markii tawxiidka loo dhiibay salaadana loo dhiibay. walidalik baa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya saacaadkii koowaad ee waxyiba nebi muuse ku soo dego
وحلقوا إذا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وحين دريمي كرنا النبي هارون صدوكاله أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وحين دريمي أن يدعو إلهي سبحانه وتعالى وينوغا رمي النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه والله تلماما يا ولا تمدن عينيك إلى ما مطعنا إلهي وتلماما يا وحن بدبد كده الدنيا زهرة الحياة الدنيا إن أنا وحبسكم مشغولين وإنده وتاقين ما حيث ما يبالغولي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذا القرآن كما كان نوفر سنة مكية قرآن كان أخري وقرآن مكية قرآن كاسي مكية أمر كان نوفر سنة إلهي سبحانه وتعالى يدو مكلا شوقه أي مسلمين تصلاة والرمي لو الرمي أنبياء دي هرأي الصلاة هل كي كتاقنتي لو الرمي النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه يوحي على فري بل القرآن كإلهي وحكوت الماما يا لقمان الحكيم من حكمة لسيي واللقمان لا يدعوه لقمان حكمة دي قوة نيدا ويلميه شكل الدردار ميا وحاكم دهي يا بني أقم الصلاة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. إنها سيودان مركا إنو اسكد ضره وحن لأن الصلاة وحا الله يسفري إنا النقطة usuusha koowaad ee islaamnimadu ka intilaaqda ama si ay ka bilaabanto inay noqoto waxyaabaha ugu waaweyn ama tiirarka ugu waaweyn ee islaamnimada qofka muslimkii ay ku taagan tahay. waxaynu dareemi karnaa hadday qur-aanka makiga sidaa ku ahayd markii nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi uu hijrooday ee uu madiina tegay markan hore afraad baa la binaynayay mujtamaca biniyadiisii koowaad usuushiisii koowaad waxay dawladdu islaamkii ku dhismaysay qof buu ahayaa afraad dad fara ku tiris oo la tirin karayo oo reer maka ah laakiin salaadaas bay ahayd wixii lagu kobciyey. madiina markuu tegayna nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu bilaabay dawlad islaamiya inuu dhiso. wixii koowaada uu mujtamaca u qabtay nebigu waxay ahayd inuu dadka u sameeyo meelihii ay ku tukan lahaayeen ilaahay kula xidhiidhi lahaayeen. markuu madiine tegay cawaalideedii koowaad markuu degay bani cawf masjidu quba ayuu nebigu dhisay. 14 casho kadib ayuu madiine u dhaadhacay. madiine markii uu tegayna wuxuu ugu horraysiiyey nebigu sameeyey masjid nabawi intaanu guri dhisanin nebi moxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi uu dego ayuu wuxuu dhisay meeshii ilaahay lagula xidhiidhayay subxaana wa tacaala masaajid. waxay culammadu yidhahdaan dawladdii islaamiga koowaad wuxuu nebigu ku bineeyey 3 shay bay yidhaahdaan. xidhiidhka basharka iyo alla udhexeeya in la xoojiyo salaada oo masaajid loo sameeyey. 2 mujtamaca dhexdiisa in la isku xidho oo walaaleeyey dadkii ansaartii iyo muhaajiriintii si islaamnimadoodu ay u adkaato oo dad aan rixim walaalo ku ahayn inuu nebigu walaalo ka dhigay. saalisul amr waxay ahayd heshiisyadii uu la galay muslimiinta gudaha joogta iyo gaaladii kale ee aan markaasi mawaaciidi ama cuhuudi ama mawaafiiqdii uu la qortay yuhuud iyo mushrikiin iyo dadkii kale. waxaynu arkaynaa markaa usuushii lagu bineeyey dawladda islaamiga ay hadday tahay maka markii la joogay afraadda la dhisayay salaad bay ahayd. hadday ahayd markii madiine la tegay wixii lagu bineeyey salaad bay ahayd. ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa kale marka la tilmaamayo ummad islaamiya markay dhisanto camalka laga rabaa muxuu yahay. waynagan le dawladdu muslim ha noqoto dawlad islaamiya ha la dhiso shareecada lagu dhaqmo shareecada lagu dhaqmaya maxaa u horeeya. إلهي قرآن كوحكو لي الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة
وحلقوا بلا بي دولة ده هدين ليدن مكانسي الذين مكناهم كوا بي إلهي لي مركا أنه مكانسينا نلقى يقوا أي حق بطان أي نقدان دولة إسلامية جرته أي نقدان بلشم مسلمة جرته وحلق الرباين يقبطيه كواد محيي أقاموا الصلاة با إلهي إذا عمل كواد الدولة الإسلامية لقى الرباين يقبطها استقل في سوحويات إقامة الصلاة صلاة دين له صلاة مركا أوجستيدو هذا نري عهد مكيها صلاة بالإسفري قرآن كي مكيها أنبياء كورمية يدو صلاة لفري كورمية النبي محمد مركو مدينة جاي صلاة مقبلة بيا مساجد دين لهجاتيو صلوات الله وسلامه عليه إلهي وحينات المامي الدولة هدي اللي ينسيه وضدك مسلمين تاي الدولة هلا وحلا قربين يدسارين يسهي أقاموا الصلاة وسيدي وجود بيت النبي محمد وكتبه وحي هيدا الصلاة تاسي وحي المامي سيدا الضد بدن صلاة وغم وقصين أنا يحين وحلقة يا بايني ندك يعني كفكريان أعمال سياسية اللوبة هي أعمال اقتصادية اللوبة هي أعمال كان اللوبة هي وحكوها الرئيسة أعمال صلاة اللوبة هي ده سياسي دبو مسلمة صحي وهذا صلاة صفي عندك وبرطه وهي صلاة وإيمانك عمليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والليبة العقدية لكن إيمانك وحو حقيقة نغضى بالصلاة ولذلك بين أرككرنا قرآن كأما نصوص قرآنية أما نصوص حديثة ومؤمنك يقال كوكا لسوعة الصلاة أما سوحي ناركينا نصوص القرآن كومرك مؤمنك نبطا لغا ورمي قضايات كيس الصلاة نلغو بلابا يا صلاة نلغو قبقبيني قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلهي وحكو قبقبيني والذين هم على صلواتهم يحافظون مؤمن كي تبطاها وحلقو السفايي اعماشي تبلو ايا قدال ايا هربا لغا دن والبا عمل كيسي وحلقو قبقبيي وقوة صلاة دودا كو خشوع يبا لغو تلماما اما وقوة صلاة دودا الالينيا بل وحينو تلمامينا دك اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله افكك قوضا الدواقي waxyaabaha lagu kala soocaa inay tahay salaad sida daraadeed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala munaafiqiinta markii la astaynayay wixii lagu asteeyay waxay ahayd salaad xumo munaafiqiin ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu asteeyey ee tilmaamay waxaa lagu tilmaamay ina almunaafiqiina yukhadicuuna allah wahuwa khadicuhum waida qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaasa ولا يذكرون الله إلا قليلا أما ولا يأتون الصلاة إلا وهم كصالى في سورة التوبة وسورة النساء إلهي سبحانه وتعالى مركو الربي إن مؤمن كالنبطة الله قد احت المامم كمنافقة النفاق كسفوا بي هذا كان وافك كلي يا شهادي آنو الضبهين أستانت الرسم قال لقدتي وحي نقطي إن يهين كوا salaadooda u kacaya iyagoo kusaala ah iyagoo caajisa iyagoo liita iyagoo aan dan badan ka lahayn taa macnaheedu waxa weeyaan markii dadka la kala tilmaamaya waxaa lagu kala tilmaamay nawciyadda salaada ay tukanayaan iyo salaada ay tukanayaan inta ay leegtahay ama waxa ay tahay sidaa awgeed waxaynu leenahay qur-aanku wuxuu in badan inoo tilmaamaya xataa muslimiinta dhabta ee la ammaanayo ilahay wuxuu ku ammaanaya kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun inay salaadii caadiga ahayd tu ka dheeraada wadeen ayaa waxaa laynoogu tilmaamayaa inay tahay sifaadka dadka sare abraarta ah in alabraar dadka hagaagsan ee muslimiinta qima taagan inay yihiin kuwa ka salaad fiican leh kuwa kale sidaa awgeed buu nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ku tilmaamaya in salaada laga yeelay waxyaabaha ishiisu ay ku doogsato ama ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaado